السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولو هذا والله ريال جنكين واحد بكريبتو وولكن محمد جامع كل عام وانتم بخير عيد مبارك عيني لي هي إلهي هنا قد قدتك وعبادته ذي صيامكو ذي قيامكو كاقبلي بشهر رمضان حلقتنا إن شاء الله waxaan kaga hadli doonaa amba aynu taxliilin doonaa bitcoin-ka waxaan jecelahay inaan xasuusiyo isdiiwaangelintii koorsiga weli waa furan tahay waxaanay furnaan doontaa ilaa 7 May biidni illah tacaala description-kana waxaad ka heli doontaa account-kayga telegramka amba bilowga videoga waxaan soo dhigay scan oo telegrama kaliyaata waxaa lagaga baahaya inaad samaysid kamaradaada ku qabo scanka kadibna wuxuu kuu gudbinayaa accountkayga telegramka waxaan jecelahay inaad ka faa'iidaan koorsiga laana 6 cisho quraata ayaa ka hadhay taxliilinta bitcoin haddaynu guda galno waxaynu arkaynaa in bitcoin lagu soo qabtay candle bearisha amba bishii April ay noogu xidhmatay maaragtay candle bearisha arintaasu aad iyo aad u xun engulfing candlekaasina wuxuu ka hoos maray 3 bilood ee ugu dambeeyey March, February iyo January-ba arintaasoo aan isleeyahay bitcoin-ka hoostaa in la geeyo waa macquul ilaa 30,000ka ilaa 28,000ka waxay ahaataba insha Allah waqtiga ayuunbaa inoo sheegi kara weekly chartka aynu ka eegnaa haddaba qaabka structure-ka uu suuqu ina siinayo hadii jeer weekly-gana waxaa laga eegaa trendka suuqa suuqu sida u socdo ma uptrend ba mise waa downtrend suuqu daba area-dana haddaynu aynu eegno waxaynu arkaynaa inuu suuqu inoo samaynayo bearish flag oo halkan inooga soo bixiyo 1 2 3 suuqanna waxaynu filaynaa inuu maaragtay hoos u dhiciisa sii wato ilaa iyo area-dan markii hore laga soo buy-gareeyay at least area-dan oo 1 2 3 markii saddexaad inuu yimaado area-dan kadibna sidaa suuqan loo kaxeeyo hadday arrintaasi suurtagal noqon weydo suuqan waxaan u malaynayaa inuu ku dhaqaaqayo qaab ah bearish flag dheer ilaa area-da soo gaari kara 14,000 ilaa 12,000 dollar u dhaxaysa ama ilaa area-dan oo u ahayd previous high oo at least halka lagu soo kamilo waxaa loo yaqaano Elliott wave oo 1 2 3 4kii area-dan u yimaado positive scenario-ha bitcoin-ka amba qaabka kale aan u eegayo waxa weeye haddaynu Fibonacci-ga ka soo cabirano area-dii ugu dambeysay uu ka soo dhaqaaqay bitcoin-ku oo ahayd ilaa 10,000 dollar ilaa iyo topkii amba meeshii ugu sareysay uu gaadhay markii hore haddaynu ku qabanno waxaynu arkaynaa area-dan sidii markii hore aan ku sheegay inay inoo ahayd area culus oo supporta waxaanay ku beegan tahay 0.61 Fibonacci level oo golden ratio ah oo had iyo jeer meel uu price-ku ka soo laaban karo ah taana biidni illah tacaala waa suurtagal to bearish flagan uu ka soo baxo maaragtay bitcoin-ku oo area-dan descending channel amba falling wedge hadduu inoogu yimaado qaabkaas oo kale ka filo biidni illah in dib loogu laabto meeshuu ka yimi ilaa iyo 100,000 dollar inuu soo taabto bitcoin-ku waa macquul